السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني ومقبلها قرن كالصومالي لان كسر وضع وركي أو قلبض وحو قرون لي أنا ذكوها أنا أي كم ديهين. مدعونا جمهورية الصومال لان أو الله كل ما يرجع حويه جود قرامد مدعو قبل الصومال لان يصومالية. وسير كولها جود أو كل واقعي قاموا الله يقول عليه هنتدا دولة. عيارها قبل الله كسر عليه مقالة برعو قبل يو ساحل أي كوض عيارين. مدحونا جمهورية الصومال لان مدن أحمد محمود سيلايو أي حرونت مدحتويدا عاصمة هرقيسة waxa uu kulan kula yeeshay ergeyga xogayaha guud qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo uu kula yeeshay qasriga madaxtooyada kuna qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Ambassador Augustine Mahiga ayaa kaga wada hadleen shirka caalamiga ah ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ee lagaga hadlayo horumarka nabadgelyada Soomaaliland iyo xoojinteeda kaasoo ay ka qayb galeen qaramada midoobay iyo xukuumadda Soomaaliland. Ambassador Augustine Mahiga oo shirkaasi kadib qasriga madaxtooyada ugu warramay saxaafadda ayaa sheegay in fursadan uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland uu uga faa'iideystay inuu ugu gudbiyo uguna soo bandhigo shirkaasi ka dhacay magaalada Hargeysa ee lagaga hadlayay horumarka ay Soomaaliland ka gaadhay nabadgelyada iyo xoojinteeda taasoo qaramada midoobay ay ku dhiirigelisay kuna siinayso taageero caalami ah. Ambassador Augustine Mahiga waxa uu qaray in Soomaaliland ay leedahay hanaan dawladnimo oo dhameystiran waxaana uu tusaale ugu soo qaatay wadamada ku guuleystay hanaanka dimuqraadiyadda in ay u tahay tusaale lagu faani karo taasina ay tahay ayaa yiri tafududeynaysa in jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay taageero siiso dadka Soomaaliland iyo xukuumadda dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ba. ciyaaraha gobolada oo ka soconaya magaalada Burco Gabiley iyo Saaxil ay ku wada ciyaareen. ciyaarta kubadda cagta ee dhexmartay gobolada Gabiley iyo gobolka Saaxil oo ahayd ciyaar aad u xamaasad badan isla markaasina dadweynaha ka soo qayb galay ay si weyn u xiiseeyeen. waxay labada ciyaartoy ee gobolada Gabiley iyo Saaxil ay la yimaadeen garoonka kubadda cagta ee Alamsay ee magaalada Burco ciyaar hufan oo isla markaasina farsamadeedu ay sareyso. labada kooxood waxay isku qaadeen weerar iyo weerar celis waxaana ciyaartaasi daawashadeeda ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay golaha wasiirada golayaasha kale ee qaranka madaxda heer gobol iyo heer degmo mas'uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka dalka ee tartanka ciyaaraha ka qayb galay madaxda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dadweyne aad u tiro badnaa. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxay labada kooxood weeraro ay isku qaadaanba aanay waxba kala dhashan hase ahaatee markii ay la soo tashadeen tababarayaashooda qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa daqiiqadii ugu horeeyay waxa goolkii ugu horeeyay dhashaday kooxda gobolka Gabiley waxaana ciyaarta xamaasadeedu ay isku shareertay cirka. kooxda gobolka Saaxil ayaa iyaduna goorkeedii barbardhaca waxay keensatay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee qaybtii dambe ee ciyaarta waxaana ciyaartaasi noqotay hal gool ay kala leeyihiin labada gobol ee tartankaasi ciyaaraha gobolada ay u dhixeeyeen ee Gabiley iyo Saaxil waxaana ciyaartaasi ku soo gabagabowday barbardhac. wasiirka howlaha guud iyo guriyinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ismaaciil Muumin Aare ayaa kulan warbaahinta u qabtay waxa uu kaga hadlay ilaalinta hantida dawladda. warbixintan uu siiyay wasiirka wasaaradda howlaha guud telefishinka qaranka waxa uu kaga warbixiyay laba arrimood oo kala ah arrimaha dhulka iyo gaadiidka oo ay wasaaradda howlaha guud qaranka u xil saaran tahay waxaana wasiirku tilmaamay inay jirto gud ay ka kooban bangiga wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda howlaha guud kuwaasi oo ka soo warbixinaya tayada guryaha dawladda waxaanu shacabka ugu baaqay inay ujeedadu ahayn in ruuxna aqal laga saarayo midna la siinayo ee ay tahay mid lagu ogaanayo xaaladda hantida qaranka heerka ay marayso iyo waliba tayadooda. maruu ka hadlayay wasiirka wasaaradda howlaha guud xaaladda gaadiidka iyo darawalada dawladda waxa uu ugu baaqay in 3 galabnimo wixii ka dambeeya in aan la ogolayn in lagu arko ayaga oo soconaya gawaadhida dawladdu haddii aanay ku jirin hawl qaranka u hayo oo laga maarmaan noqotay. wasiirku waxa uu shacbiga Soomaaliland iyo waliba hay'adaha garsoorka
ka codsaday inay ixtiraamaan go'aamadan ka soo baxay wasaaradda howlaha guud islamarkaana ay u hoggaansamaan. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda somalilan waxa ay furtay kulan lagaga hadlayo gorfaynta dhammaystirka qorshaha ilaalinta xuquuqda aadamiga. kulankan oo muddo 3 cisho socon doona ayaa lagaga hadli doonaa gorfaynta iyo ka talo bixinta ilaalinta xuquuqda carruurta waxaana kulankan ka soo qayb galay wasaaradda qoyska maxkamadda iyo weliba qareennada Somaliland iyo hay'adaha caalamiga ah kuwa rayidka iyo cuqaasha iyo weliba marti sharaf kale waxaana kulankaasi ugu horeyn furtay Marweylhan Maxamed Jaamac wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaana wasiirku furtaankii kulankaasi ka sheegtay inay muhiim tahay ilaalinta xuquuqda carruurtu arrintan ay iska kaashadeen wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda UNICEF. wasiirku waxay ku dheeraatay sida loogu baahan yahay in la xaq dhowro islamarkaana la tixgeliyo xuquuqda ay carruurtu nagu leedahay islamarkaana si wanaagsan loola dhaqmo. wasiirku waxay ku dheeraatay sida loogu baahan yahay in la xaq dhowro islamarkaana la tixgeliyo xuquuqda ay carruurtu nagu leedahay islamarkaana si wanaagsan loola dhaqmo. inta kulankani socdo waxaa lagu lafaguri doonaa arrimaha carruurta la xidhiidha iyo sidii looga howlgeli lahaa xukuumad iyo shacbiba ilaalinta xuquuqdooda. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kale oo ka mid a kasoo qaybgalayaasha. wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan mudane axmed cabdi maxamuud xaabsade ayaa waxa uu shahaadooyin guddoonsiiyey 150 arday oo ka qalin jabiyey dugsi tababarka xirfadaha lagu qaato oo ku yaala magaalada Ceerigaabo ka hor intii aan ku soo laaban magaalada madaxda Hargeysa. wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta axmed cabdi xaabsade ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey 150 arday oo ka qalin jabisay dugsiga xirfadaha iyo tababarada ee hay'adda Kandhaleed ee magaalada Ceerigaabo. munaasabadda qalin jabinta oo ardaydaas oo si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta, afhayeenka xisbiga kulmiye, gudoomiyaha gobolka Sanaag, ardaydii qalin jabisay, madaxda hay'adda Kandhaleed iyo marti sharaf kale. maamulaha dugsiga tababarada Vocational Training Center ee magaalada Ceerigaabo Maxamuud Cabdilaahi Aadan oo ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay ayaa xusay in ardaydani ay dhammaysteen aqoon xirfadeed oo isugu jirta dawaarka, xoghaynta, korontada iyo cunto karinta. waxaanu xusay maamuluhu in ardaydani ay yihiin difcaddii 7aad ee ka qalin jabisa dugsigaasi tan iyo xilligii la aasaasay ee 2007. madaxa hay'adda Kandhaleed ee gobolka Sanaag Xasan Diiriye oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa isaguna dhinaciisa ku dheeraaday mashaariicda hay'adooda ay ka fuliso gobolka oo uu xusay inay kow ka tahay dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo deegaanka. waxaanu xusay in mashaariicdan ay hay'adooda dalka Somaliland iyo gobolka Sanaagba ay ka fulisay ay ku mutaysteen in shahaadada caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ay guddoonsiinayso xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan waddankaasi Maraykanka Hillary Clinton. waxaanu xusay in shahaadadaasi la guddoonsiin doono aasaasaha hay'adda Kandhaleed ee Somaliland oo uu xusay in keligeed waddamada Afrika shahaadadaasi la guddoonsiin doono. wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta axmed cabdi xaabsade oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ardayda qalin jabisay ku bogaadiyey dadaalkooda ku aadan aqoonta ay barteen. waxaanu ardayda ku booriyey in aanay waxbarashada halkaasi kaga hadhin ee ay cilmiga sii wataan. waxaana wasiirku ku dheeraaday siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan sidii dhallinyarada reer Somaliland ee cilmiga barata shaqad xukuumaddu ay ugu abuuri lahayd, isagoo si weyna ugu mahad celiyey hay'adda Kandhaleed ee ardaydan waxbartay. intaa kadibna waxa uu wasiirku halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyey ardaydii dugsigaasi ka qalin jabisay. waa maxamuud maxamed xasan Saraaf, TV-ga qaranka Somaliland, Ceerigaabo. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Faysal Cali Sheekh ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay la taliyaha safiirka dalka Masar u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti oo socoto ku yimid dalka Somaliland. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta mudane Faysal Cali Sheekh ayaa xafiiskiisa ku qaabilay la taliyaha safiirka Masar u fadhiya dalka Djibouti oo dhawaan booqasho dalka ku yimid. agaasimaha guud oo hadallo soo dhaweynaya mahadnaq halkaasi ka jeediyay ayaa ka warramay xidhiidhka Somaliland iyo Masar u dhaxeeya kaasi oo tilmaamay in dhawaan Masar ay bilaabi doonto dhismaha maktabadii Hargeysa ay ku lahayd dhinacyada waxbarashadana ay kaalin weyn ka geysteen, taasi oo u bandhigay baahida wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta. la taliyaha safiirka Masar u fadhiya Djibouti Maxamed Al-Amiir oo isaguna hadal kooban jeediyay ayaa xusay xiriirka Masar iyo Somaliland ee ka dhaxayn jiray, waxaana uu sheegay socdaalkani inaanu ahayn kii ugu horeeyay ee uu ku yimaado Somaliland. la taliyuhu waxa uu ballan qaaday in baahida iyo dalabka wasaaradda warfaafinta uu gudbin doono dawladdiisa xiriir wanaagsanna wasaaradda ay wada yeelan doonaan. la taliyuhu waxa uu kormeer ku soo maray markii kulankaasi dhammaaday qaybaha
wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta sida istuudiyaasha kaydka hadalka raadiyo hargeysa wakaalada wararka qeybaha internetka iyo qeybaha kala duwan ee TV-ga qaranka taasi oo agaasimuhu warbixin ka siiyay ila taliyaha gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani ee dalkan Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo Maxamuud Maxamed Saraaf ayaa ka waramaya waxaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo si ballaaran loogu soo dhaweeyay isla markaasna loogu qaabilay wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasna gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee urur siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxaana duleedka magaalada Ceerigaabo wafdigan kaga hortagay gaadiid iyo dadweyne aad u tiro badan oo ku labisnaa calanka muuqa dheer ee astaanta u ah urur siyaasadeedka wadani iyadoo halkaasna gudoomiyaha iyo wafdigiisu ay mid u gacan qaadeen dadweynihii ka hortagay oo taxnaa wadada hareeraheeda inta kadibna waxaa wafdiga gudoomiyaha loo soo galbiyay dhinaca magaalada Ceerigaabo iyadoo lagu soo wareejiyay jidadka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada Ceerigaabo ay tubnaayeen dadweyne aad u tiro badan oo wafdiga ku qaabilay dareen jawi nabadgelyo oo wadani ay ku dheehantahay inta kadibna waxaa gudoomiyaha iyo wafdigiisu ay xariga ka jireen xarunta xafiiska guud ee urur siyaasadeedka wadani ee magaalada Ceerigaabo waana gudoomiyaha Cirro oo wajigiisa ay ka muuqato dareen farxadeed oo ku wajahan soo dhaweynta ballaaran ee uu kala kulmay bulshada reer Ceerigaabo oo aan u kala hadhin oo halkaasi kala hadlay dadweynihii soo dhaw anigoo ku hadlaya wafdiga magaciisa ee ka socda urur siyaasadeedka wadani waxaan mahadnaq ballaaran oo aanan qiyaasi karin soo jeedinayaa shacbiga magaalada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag haddii ay yihiin ururka wadani waxaan halkan u nimi maanta inaanu soo furno xafiisyadii gobolada waxaan ugu anaaniman inaanu ololo siyaasadeed waxaan u nimi inaanu xafiisyadii soo furno waxaanu ahay ururkii ugu horreeyey ee markii la bilaabay diiwaangelinta isdiiwaangeliyey waxaanu buuxinay shuruudihii ugu horreeyey ee laga rabay ururada waxaanu halkan u nimi inaanu buuxino shuruudaha qaybta labaad oo ay ugu horrayso in la furo xafiisyada taageerayaasha la diiwaangeliyo haddaan ka soo qaado laba arrimood oo qudha waxa uu taagan yahay mid waa nabadgelyada in la sugo amniga qaranka oo la ilaaliyo gobolka Sanaag iyo bulshada reer Soomaaliland bulshada reer Sanaag waxaan ku hambalyeeynaa heshiiskii nabadda ee ay samaysay maantii weey waxaan ku hambalyeeynaa cid kasta oo ay ka qayb qaadatay in la gaadho heshiiskaas oo la gurto hadday tahay xukuumadda hadday tahay oday dhaqameedyada hadday tahay dadkii kale uga jiibay gobollada kale iyo odayaasha gobolka Sanaag waxaanu ku hambalyeynaynaa heshiiska nabadda ay gaadheen weliba waxaanu jeclaan lahay berigii nima jirnay waxa la odhan jiray waa 4 beelood Ceerigaabo waxaanu jeclaan lahay oo weliba soo jeedinaynaa inay beel qurana noqoto Ceerigaabo nabadgelyadu waa waxaanu kaga duwannahay walaalaha Soomaaliya nabadgelyo la'aanta dhibta ay leedahay qof walba uu dareemayaa in miisaan reer Soomaaliya nagu soo qaxay magaalooyinka jooga oo carruur leh oo dad culimaa leh oo dad ganacsataa leh walaalayaal waxaan kula dardaarmaynaa inaynu nabadda aqoonadeen dhammaanteen aynu wada ilaalinno waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno aad u tiro badan oo isugu jira mas-uuliyiinta sarsare ee ururka wadani salaadiin waayeel iyo dhalinyaro oo dhammaantoodba muujiyey sida ay u soo dhaweynayaan wafdiga gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani iyo taageerada ay u hayaan ururka wadaniba imaantiga wafdiga gudoomiyaha ururka wadani ayaa ku soo beegmay xilli gobolka Sanaag ay ka hana qaaday xasilooni iyo nabadgelyo taama waxaana haweenka gobolka Sanaag ay ku qaabileen wafdigan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Sanaag uu caanka ku yahay waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf TV-ga qaranka Soomaaliland Ceerigaabo geesta kale urur siyaasadeedka wadani waxa ay xafiis cusub ka furteen magaalada madaxda gobolka Saraar ee Caynaba waa kan Jaamac Buud Cadde oo ka soo waramay wafdi ballaaran oo ka socda urur siyaasadeedka wadani isla markaasina uu horkacayo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa maanta soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar wafdigan oo hogaaminayo Mr. Cirro ay socdaalkiisa ku wehelinayeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland
iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ururkaasi wadani ayaa waxaa duleedka magaalada Caynabo ku soo dhaweeyay taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani iyo mas'uuliyiinta sarsare ee ururkan wadani ee magaalada Caynabo waxaana markii gudoomiyaha golaha wakiiladu soo gaaray magaalada Caynabo oo si rasmi ah xariga uga jaray xafiiska cusub ee urur siyaasadeedka wadani uu ka furtay magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar munaasabad ballaaran oo lagu qabtay afaafka hore xafiiska ururkan wadani uu ka furtay magaalada Caynabo oo gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani uga jeediyay khudbad taageerayaasha urur siyaasadeedkan ayaa waxa ugu horeynba xafladan ka hadlay Muuse Xaaji Maxamed Guuleed Muuse Inji oo ka tirsan mas'uuliyiinta sarsare ee urur siyaasadeedka wadani oo tilmaamay in urur siyaasadeedka wadani uu yahay kii ugu horeeyay ee si rasmi ah isu diiwaan geliya waxaana uu shacabka reer Caynabo ka codsaday inay la shaqeeyaan urur siyaasadeedka wadani Professor Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale xildhibaan Faarax Dheere iyo xildhibaan Ibraahim Dhaadheere iyo waliba mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka wadani ee gobolka Saraar uu kamid yahay Maxamuud Warsame Hilbayre oo iyaguna munaasabadan ka hadlaya dhamaantoodba ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in shacabka gobolka Saraar ay taageeraan cid kasta oo ka shaqeynaysa danaha ummadda waxaana ay ku booriyeen shacabka magaalada Caynabo iyo guud ahaanba gobolka Saraar inay ka howlgalaan sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarinta iyo xoojinta cidda ka shaqeynaysa danaha ummadda ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo munaasabadan ka hadlay ayaa tilmaamay in urur siyaasadeedka wadani uu buuxiyay shuruudii hore ahayd inuu isdiiwaan geliyo isla markaasina haatan u socdo shuruudda labaad oo ah buu yiri inuu xafiisyada ka furto guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka waxaana uu tilmaamay in urur siyaasadeedka wadani lagu talagalay inuu ka shaqeeyo horumarinta danaha ummadda gaar ahaan horumarinta dhinacyada arrimaha bulshada ee horumarinta biyaha caafimaadka iyo waxbarashada waxaanu safarka iyagu ujeedada ugu muhiimsan waxay ahayd inaanu maanta soo furno xafiisyadii gobolada oo uu ka mid yahay gobolka Saraare waa farxad weyn noo ah inaanu maanta xadhiga ka jarnay xafiiska quruxda badan ee naga siiseen magaalada Caynabo gobolka Saraar urur siyaasadeedka wadani wuxuu ka mid yahay urur siyaasadeeda lagu dhawaaqay Somaliland iyo kuwa la soo wadaba ayuu hormuud u yahay oo ururkii ugu horreeyay isdiiwaan geliyey kadib markaanu buuxinay shuruudihii qaybta koowaad waxaanu hadda u soo baxnay inaanu soo buuxino shuruudihii qaybta labaad oo ka mid yahay in xafiisyo la soo furo in taageerayaasha la diiwaangeliyo gudoomiyaha golaha ahna gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo wafdiga hogaaminayay ayaa iyadana si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Ooga xarunta degmada Ooga halkaas ay ku soo dhaweeyeen boqolaal kamid ah taageerayaasha ururkan wadani iyo dadweynaha aad u tiro badan oo kale waxaana iyadana si rasmi ah xadhiga uga jiray xafiiska urur siyaasadeedka wadani uu ku leeyahay magaalada Ooga ee xarunta degmada Ooga si kastaba ha ahaatee waa urur siyaasadeedkii ugu horeeyay xafiis ka furtay magaalada Caynabo intii urur siyaasadeedada lagu dhawaaqayay bilihii u dambeeyay Jaamac Booda Cadde TV-ga qaranka Soomaaliland Caynabo mayrka caasimadda Hargeysa waxa uu kulan isagu la yeeshay gudida ganacsatada silada xoolaha ee magaalada Soomaaliland Hargeysa maayarka caasimadda Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jiciir ayaa kulan la yeeshay gudida ganacsatada ee seylada xoolaha magaalada Hargeysa kulankaasi oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxa laga wada hadlay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo seylada xoolaha gudoomiyaha gudiga ganacsatada iyo xubno kale oo kamid ah ganacsatada ku ganacsada seylada xoolaha oo ka hadlay kulankaasi ayaa mas'uuliyiinta dawladda hoose ka codsaday inay bulshada ganacsatada ah ka jaahil tiraan warar sheegaya in seylada xoolaha lagu wareejinayo dad gaara waxa kale oo ay ka codsadeen in ay gudigoodan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ku ganacsada seylada xoolaha ay kala tashadaan mashaariicda horumarineed ee laga hirgelinayo seylada xoolaha si bulshadu ugu kalsoonaato mashaariicda isla markaana meesha looga saaro warar been abuur ah oo bulshada lagu jaawareeriyay maayarka caasimadda Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jiciir oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inaanay jirin cid gaar ah oo lagu wareejinayo seylada xoolaha wax cashuur ah oo la korinayo waqtigan iyo cid si gaar ah loo takoorayo hasaate waxa uu tilmaamay in seylada xoolaha laga hirgelinayo mashaariic horumarineed oo dawladda Ingiriiska ugu deeqday dalka taasi oo dib u habeyn lagu sameynayo adeegyada bulshada si kor loogu qaado dhammaanba adeegyada bulshada u baahan tahay ee seylada xoolaha waxa kale oo uu sheegay in wajiga labaad ee mashruucan loogu talagalay in lagu hirgeliyo mashaariic intan ka ballaadhan oo ay ka mid yihiin meelo lagu xanaaneeyo xoolaha laguna naaxiyo marka la dhoofinayo iyo mashaariic kale
waxa kale oo kulankan ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa Mawlid Waris iyo Ismaaciil Caymis oo kamid ah golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. kulan lagaga hadlayo ka wacyigelinta cudurka HIV/AIDS iyo halistiisa dhalinyarada waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa. kulankan oo lagaga hadlayay si dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa cudurka dilaaga ee HIV/AIDS oo lagu qabtay hotel Samatem ee magaalada Hargeysa kaasoo ay soo qabanqaabiyeen ururka Somaliland Youth Peer Education Network taasoo ujeedadiisu ahayd sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa inay ka fogaadaan cudurka halista HIV/AIDS waxaana kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi soo qabanqaabiyay kulankaasi Maxamed Damac oo ka warramay halista cudurka HIV/AIDS uu leeyahay dhalinyaraduna ay yihiin kuwa halis ugu jira cudurkaasi loona baahan yahay inay ka digtoonaadaan lana sameeyo wacyigelin ku aadan sidii dhalinyartu ay uga fogaan lahayn cudurkaasi waxa kale isaguna halkaasi ka hadlay Sayid Cumar oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ka warramay muhiimadda kulamada noocan kale ay leeyihiin iyo sida laga maarmaanka u tahay in dhalinyarada laga wacyigeliyo wax kasta oo dhib ku ah caafimaadkooda iyo Mareeyaha wakaalada korontada Hargeysa waxa uu shaaciyay qorshayaal cusub oo ay ugu adeegayaan bulshooyinta. Mareeyaha hay'adda korontada mudane Weli Axmed Xaawo ayaa shaaca ka qaday in warshadu ay ku dartay waqtigii ay shidi jirtay leydhka hal saacad oo dheeraad ah taasi oo ku beegan 3 galabnimo waqtiga ay soo dhacayaan ciyaaraha tartanka gobolada dalka ee ka socda magaalada Burco. Mareeyaha hay'adda korontada mudane Weli Axmed Xaawo waxa uu tilmaamay in sida telefishinka qaranka ee Somaliland uu u suurtageliyay daawashada ciyaarta ka socota magaalada Burco ay iyaguna ay bulshada Somaliland ugu talagaleen in ay u suuro galiyaan si ay u daawadaan waqtigii ciyaartu ay soo dhacaysay in ay soo shidaan leydhkii oo hore u soo dhici jiray ama loo soo shidi jiray 4 galabnimo haatana ay soo shidi doonaan 3 galabnimo waxa kale oo uu tilmaamay in ay warshada korontada ee magaalada Hargeysa ay qaaday talaabooyin hor leh oo ay ku horumarinayso adeegyada ay bulshada u hayso taasi oo uu tilmaamay in 5 degmo ee caasimadda Hargeysa ay gaarsiiyeen leydhkooda isla markaasina ay ka furteen xarumo ay warshadu uga adeegayso bulshada ay leydhka u shido sidoo kale waxa uu Mr. Weli Axmed Xaawo uu tilmaamay in tan iyo intii uu xilka la wareegay ay ku talaabsadeen kicinta 3 ijiin oo hore u fadhiyay haatana ay warshadu leedahay 4 ijiin oo dhammaantoodba shaqeeya waxaanu ku dardaaray guud ahaanba howlwadeennada ka shaqeeya ama ka howlgala warshada korontada ee magaalada Hargeysa in ay si hufan oo howlkarnimo leh ay ugu shaqeeyaan bulshada ay u adeegayaan. xaflad lagu furayay masaajid cusub oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa xaafad kamid oo macallin Haaruun leedana waxa lagu qabtay isla goobta laga dhisay masaajidkaasi. munaasabadan xadhiga lagaga jaray masaajidka cusub ee laga dhisay xaafadda Sheekh Nuur oo ay ka soo qayb galeen culimada waaweyn ee dalka xafladan oo ka dhacday masaajidka cusub ee laga hirgeliyay xaafadaas oo ay dhistay muwaadiniin reer Somaliland oo magaceeda leeyahay Shukri Cismaan Geele ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay Sheekh Maxamed Cali Garlo oo ka warramay faa'iidada iyo ajarka ay leedahay dhisidda masaajidka oo uu ku tilmaamay mid lagu helayo abaalmarinta ugu qiimaha badan ee Allah uu bixiyo oo ah in muwaadinadu ay ku hesho janno uu Allah siiyo wuxuuna Sheekh Maxamed Cali Garle Allah uga baryay xaajiyada Shukri Cismaan in uu Ilaahay khayrkan ay samaysay ka abaalmariyo isla markaana loo baahan yahay in muwaadinada lagaga daydo mashaariicda noocan ee faa'iidada u leh ummadda muslimiinta Sheekh Maxamed Aadan oo isna xafladda ka hadlay ayaa u mahadnaq u soo jeediyay muwaadinada hirgelisay in masaajidkan laga dhiso xaafadda allana ka baryay in uu Marwe Shukri ka abaalmariyo Sheekh Maxamed Aadan waxa uu xafladan ku tilmaamay mid ugu qiimaha badan xafladaha laga qayb galo isagoo dadka deegaanka masaajidka laga hirgeliyayna laga dhisana kula dardaarmay in ay ilaaliyaan isla markaana ay camiraan masaajidka Sheekh Maxamed Cumar Dirir ayaa isna ka warramay faa'iidada ay muslimiinta u leedahay dhisidda masaajidka iyo sida loogu baahan yahay in mashaariicda noocan loo sii horumariyo wuxuuna Sheekh Dirir xaajiyada dhistay masaajidkan uu Ilaahay uga baryay inuu cimriga u siyaadiyo khayrka ay samaysayna uu ka abaalmariyo dhammaan culimada iyo odayaasha xaafadda Sheekh Nuur ee masaajidka laga hirgeliyay ee xafladan ka soo qayb galay ayaa dhammaantood alla uga baryay in khayr iyo xasanaadka ay samaysay muwaadinadan uu alla siiyo marwada hirgelisay masaajidkan dadka deegaankana kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan nimcada uu alla siiyay gabagabadii xafladan ayaa waxa soo xidhay Yuusuf Ismaaciil oo ah muwaadinka xafladan soo qabanqaabiyay isla markaana isku dubariday xarun cusub oo laga dhisayo magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco oo lagu xanaaneyn doono agoomaha ayaa qaadaan lacag iyo qorshayaal kale loogu ururinayo wax lagu qabtay magaalada London. Horseed ayaa soo qabanqaabiyay xaflad ballaaran oo qaaranta Burcada loogu ururinayay xarun cusub oo loo dhisi doono agoomaha magaalada Burco
xafladan oo ka dhacday bariga magaalada London ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin aqoon-yahano mujaahidiin abwaano iyo dadweyne fara badan oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada London xafladan oo ujeedada ugu weyn ee loo qabtay ahayd sidii caaraanta burcada loogu ururin lahaa xaruntan cusub ee loo dhisay agoomaha magaalada Burco ayaa waxa dadka halka ka soo qayb galay ay dhamaantood isku go'aabiyeen in loo baahan yahay in laga qayb qaato dib u dhiska xaruntan cusub ee loo dhistoono caruurta agoomaha ah ee ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan caasimadiisa magaalada Burco waxayna dadka halka kaga yabooheen qaaraan dhaqaale oo qof waliba wixii awoodo halka uu ka soo jeediyay dadweynaha halka ka hadlay waxa kamid ahaa Suldaan Maxamed Xaaji Xuseen oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland isagoo suldaanku halka ka jeediyay ereyo uu ku guwaabinayay dadka ka soo qayb galay xafladda sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaruntan cusub ee loo dhisay agoomaha magaalada Burco sidoo kale waxa iyaguna halka ka hadlay xubno ay kamid ahaayeen abwaano oo aan ka xusi karno abwaan Cali Axmed Raabi Cali Sanye iyo abwaan Hore walwal oo dhawaan ka yimid Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa xubnihi halka ka hadlay kamid ahaa Mujaahid Maxamed Yuusuf oo kamid ah mujaahidiintii ururkii Asnam sidoo kale waxa iyaguna halka ka hadlay Sheekh Dalmar iyo waliba culimo kale oo ka tirsan culimada magaalada London waxayna dhamaantood dadkaas ku nuuxuseen sidii wax loogu qaban lahaa caruurta agoomaha ah ee ku dhaqan magaalada Burco waa Muniir Axmed Cigaal TV-ga qaranka magaalada London warar kale aan dukaanayno gudaha dalkana waxaa kamid ah Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland oo maanta shir sharaa'id ku qabtay gurigiisa ayaa maanta hambalyo iyo boogaadan u diray guddiga dhexdhexaadinta deegaanka Ceere Gaabo isagoo suldaankuna hambalyo gaar u diray hormoodada guddidaas oo horkacay wasiirka wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha arrimaha qoyska iyo weliba uqaashi waxgaradka Ceere Gaabo ee sida wanaagsan hawshaasi uga gashay deegaanka Ceere Gaabo Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar waxaa intaasi ku daray oo uu sheegay inuu hambalyo boogaadan u dirayo isla markaasina ugu ducaynayo inay nabadaasi noqoto mid waarta oo deegaanka Ceere Gaabo walbeero oo Soomaaliland ka waarto waxaana sheegtay inuu labada dhinac ee walaalaha ay colaadu dhex martay Ilaahay uga baryayo inuu Ilaahay sidaas ku dhameeyo isla markaasina uu nabadgeliyo xasnoolkooda noolaysiiyo Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo arrimahaasi gaadaya ayaa waxa uu yiri shaqaaqadii ee dadka walaalaha ee wada dhashay ee gobolka Sanaag magaalada Ceere Gaabo ku wada noolaa ee muddada dheer ay u soo dhaxaysay arrintii dhacday ee iskoormaadkii dadna ku dhintay dadna ku dhaawacmeen oo Ilaahay mahadii maanta shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Ceere Gaabo ayaa lagu hambalyeynayaa dhammaanba shacbi weynaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag magaalada Ceere Gaabo xukuumadda wasiiradii ka qayb galay ee warfaafinta arrimaha gudaha arrimaha qoyska la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bariga golayaashii guurtida madax dhaqmeedyada salaadiinta iyo boqorada iyo nabadoonnada ka qayb galay guddidii dhexdhexaadinta ee arrinkaa ku guulaysatay dhammaantoodba waxaan jecelahay inaan halkan uga mariyo hambalyo aan ugu hambalyeynayo sida wanaagga ah ee sharafta ku jirto ee loo dhameeyay arrinka markii ugu horeysay Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland ka hadlo arrimaha deegaanka Ceere Gaabo isagoo maro horena baaqayna ayaa maanta guud ahaan gobolka Gabiley iyo gobolada Soomaaliland qaarkood si ballaaran looga soo dhaweeyay go'aankani ay qaateen deegaanada walaalaha Ceere Gaabo Nimcaan Ibrahim TV-ga qaranka Gabiley isla wararka gobolada Abubakar Xasan Caafi ayaa waxa uu nooga soo waramay kuwan laga hadlayay xuska maalinta naafada adduunka oo 3 Disembar ku beegan munaasabad lagu maamuusayay 3 Disembar oo ku beegan maalinta loo asteeyay inay tahay maalinta naafada adduunka ayaa lagu qabtay hotel reese magaalada Boorama waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay ururka wadaniga ah ee Sobo maamulka dugsiga dagolayaasha iyo wasaaradda waxbarashada iyo hay'ad kamida hay'adaha xuquuqul insaanka waxaana munaasabadaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay soo bandhigeen ardayda dagolayaasha dugsigaasi wax ka barta iyo waliba riwaayad ka turjumasay in dadka naafada ay wax qabsan karaan haddii garab la siiyo waxaana munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga dagolayaasha ee magaalada Boorama Faarax Talan oo ka sheekeeyay heerarkii kala duwanaa ee dugsiga dagolayaasha uu soo maray
oonu kula jirnay ururka naafada ee bahwadaagta ee somaliland nasiib darro waxaad moodaa in waxyaabo fara badan iska bedeleen nasiib darro waxaad moodaa in dhaqdhaqaaqa ka jira gobolka iyo marka loo eego gobollada kale in farqi weyn u dhexeeyo moodo soomaalida hadayga waxay tiraa durbaangarabkaaga ugu jiro ama gacanqaaga u tumo sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka sabho cabdishakuur maxamed cabdi waxaana uu ka warramay in ururkoodu had iyo jeer uu garab siiyo dadka naafada ah islamarkaasina ay ka shaqeeyaan waxyaabo kala duwan xaafadaada ka tago ama halkii soo socdaan uu burco socdo inuu gaarigu kula dhaco sidaa naafo ku noqotay naafonimadu waa laga baxayay marka maadaama islaamka wax kaaga fog baahayn waxa weeyaan naafadii inaynu hurdona insha allah aynu kor qaadno aynu isku tashano waalidiin ahaan dhanka kale munaasabad lagu maamuusayey maalinta HIV AIDSka oo ku beegnayd 1 December ayaa lagu qabtay Mana Guest House ee magaalada Boorama waxaana munaasabadaasi hadallo ka jeediyey afayeenka ururka qabanayay munaasabadaasi xuska HIV AIDSka Cabdiraxmaan Xuseen sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururkaasi Axmed Cabdiraxmaan Cismaan wuxuuna ka sheekeeyey ururkoodan iyo sida had iyo jeer ay uga qayb qaataan howlaha dhinaca wacyigelinta ee HIV AIDSka Sheekh Cilmi Cismaan Naxwe iyo guddoomiye ku-xigeenka shirkadda Samtal oo iyadu gacan ka geysay maalgelinta munaasabadan HIV AIDSka lagu xusayey Xasan Cabdilaahi Aadan waxaana uu ka sheekeeyey in shirkadoodu ay had iyo jeer garab taagan tahay cid kasta oo horumar iyo waxqabad adeegyada bulshada kaalin ka geysanaysa iyaga markooda ku tirsiin lahaa in halka ka sii wadaan oo in ka caajisin bulshada ururkuna kulli uu badanyahay inta hore u baahan yahay kulantrin qofku shaqeeyo jeebkiisa kasbado oo waqtigiisa horo oo casharkiisa dayaco oo ay bulshada ku shaqeynayaan bulshadu lacag ma siinayso adiga raba inaad bulshada u adeegto adiga raba bulshada inaad faa'iidayso waxaan rabaa marka koowaad inay u sanqaan barnaamijkan wadaan marlabaadka barnaamijkan maanta ay xusayaan HIV AIDSka xaqiiqatan waa wax jira wax la qofeed kalena maaha waxaana moodaa hadda in lala soo qabsanayo waqtiyada qaarkood marka la soo qaado dadku waxay samayn jireen inay ka waxanaaqaan dadka qaarkood iska caamila xaamisan jireen inuu ku dhacon gaarada marka dumarka looga sheekeeyo marka familyiga noqdaan ilaahay lagu dada cudurkii ku dhici jiray gaarada bay xaqiiqatan cudurkana waa musiibo waa cala ilaahay waqti calada ilaahayna ma kala reebto muslim iyo gaal Dr. Cabdicasiis Maxamuud Askar ayaa isaguna ka warramay inaan HIV AIDS lagu kala qaadin in wax la wada cuno biyaha la wada cabo iyo in la isa salaamo intaba balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga fogaado dhibaatooyinka HIV AIDS-ku leeyahay waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama isla wararka gobolada xafladda ay soo qabanqaabayeen mujaahidinta jimciyadda Sooyaala gobolka Saaxil oo loogu talagalay in lagu furo dugsi ay ka faa'iideystaan ardayda ay dheereen mujaahidiintii Sooyaal ee halgankii xoreynta xilligii la aasaasay Sooyaal schools wuxuu ahaa 2003 goobta laga bilaabo waxay xarunta guud ee Sooyaal waxa lagu bilaabay hal macallin iyo 40 daasadood lagu fariisto sidooyinkii loo aasaasay ayaan idin sheegayaa haddaba iyagoo kooban sida ay waxbarasho u heli lahaayeen halgamayaasha aan helin waxbarasho xilligii ay iyo weliba ardayda ay dhaleen ciidamada boolisku oo xarayto lagu qabtay xarunta jimciyadda Sooyaal ee magaalada Berbera oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmadu ayaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada kaasi oo loogu talagalay ama lagu tuhmay inay ku mutaysteen waxqabadka kala duwan ee baryahan dambe ay ka qabteen xarunta gobolka Saaxil ee Berbera warayna hadalkaasi uu ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamed Cali Salebaan Ramaax ayaa uu kaga warramay mas'uulkan iyo ahmiyadda uu leeyahay ardayda wax baranaysa iyo caruurta ay dhareen mujaahidiintu oo mar badan u baahan in la gacan qabto
sidoo kalena duqa magaalada berbera cabdalla maxamed cali ayaa isna hadalkaasi uu ka soo jeediyey si weyn ugu bogaadiyay jimciyadda sooyaal iskuulka halkaasi ay ka furayeen faa'iidada uu leeyahay ardayda ay dhaleen mujaahidiintu iyo kuwa kale ee booliska iyo waliba kuwa kale ku inaan munaasabadan caawa ka soo qayb galno iyadoo ahmiyadda aanu siinayno iyadoo hawlo fara badan oo qaranku leeyahu jiro waxaanu ahmiyadda u siinay maadaama ay ka hadlayso waxbarasho ayaa waxay leedahay qiimo dhac ayay noogu fadhidaa marka hore waxaan aada ugu mahadnaqayaa dugsigan olympic institute runtii waxaan ka markhaati ka ahaya ardayda dhallinyarada ah ee halkan kaga hadlaysay luqadaha ayaan kaga hadlayaa waxa weeye bala ammaanka maadaama aanu bilayskii nahay ammaanka aad noo dirateen waxaanu nahay ninka geela loo dirto dhallinyaraad tiro adinku qoladaa geela waxba ka garan maysaane laakiin waxa weeye ninka adiga kuu adeegaya kuu shaqaynaya ayaanu nahay oo kale weeye sidaa weeye waxa weeye dhallinyaradiinna aad iyo aad u fiican ee sharafta badan leh ee waxbarashada u soo diyaargarowday ee aad iyo aad marka hore waynuu ducaynaynaa in ilaahay idinku dhaqan gobolka ay u baahan inay helaan waxbarasho dugsigan ayaa la sheegay in lagu baran doono waxbarashada dugsiga sare iyo luqadaha ingiriisiga iyo faransiiska waa markii ugu horeysay dugsi noocaas laga furo ama ay furto jimciyadda sooyaal ee gobolka saaxil cabdisalaan xariir TV-ga qaranka berbera wararka caalamka intiisa kalena madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W Bush ayaa waxa uu socdaal ku tagay magaalada madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa Muhammad Daahir ayaa ka waramaysa madaxweynihii hore ee calanka Mareykanka madaxweyne George W Bush ayaa socdaal shaqo oo ku tilmaamay humanitarian ama laga hadlayo uu ku horumarnay guud ahaan xaaladaha caafimaadka ee qaaradda Afrika sida uu hadalka u dhigay ku yimid caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa madaxweyne Bush waxa uu socdaalkiisa kasoo bilaabay xarunta dalka Tanzania ee Tanzania kaasoo ku fiksiyey Zambia waxaana uu kusoo gabagabayn doonaa socdaalkiisa shaqo ee ku yimid guud ahaan qaaradda Afrika caasimada dalka Itoobiya iyo Addis Ababa oo lagu tilmaamo badi inay tahay caasimadaha guud ahaan qaaradda Afrika iyadoo ku misay guud ahaan midowga Afrika xarun ballaaran uu ku leeyahay ECA ama Economic Commission for Africa oo hay'adaha qaramada midoobay guud ahaan shirarkooda caalamiga ay ku yeelanayaan dibadda ugu taagaan caasimada dalka Itoobiya iyo Addis Ababa Bush ayaa socdaalkiisa ku yimid guud ahaan qaaradda Afrika waxaa si weyn uga soo horjeesatay hay'adda xuquuqda aadamaha u dooda ee Amnesty International oo ku arkay guud ahaan dowladaha uu maraya Bush inay xabsiga u taxaabaan iyadoo uu tilmaamay guud ahaan guuldarooyin ay ku tilmaameen sanadkii 2009 inuu xasuuq aadanimada ka baxsan kula kacay dadweyne aad u tiro badan hase yeeshee guud ahaan dowladaha uu booqashada ku yimid ayaa ka dhagaadeegay inay arrintaasi meelmariyaan madaxweyne George W Bush socdaalkiisa shaqo oo aan ahayn mid rasmi ah ee uu ku tilmaamay inuu ku dhiirigelinayo himilooyinkii aabihii ee hirgelinta la dagaalanka guud ahaan cudurrada faafa HIV/AIDS infectionka iyo weliba kansarka ayay ku tilmaameen mas-uuliyiin tiro badan oo qaaradda Afrika ku sugan inay tahay inuu magaciisii siyaasinimo dib ugu soo celiyo guud ahaan adduunyada gaar ahaan qaaradda Afrika oo aan sumcad wanaagsan ku lahayn madaxweyne Bush waqtigii uu talada cariga Mareykanka hayay dalka Itoobiya aad laguma soo dhaweynin lagumana qaabilin waxaana kulamo gaar la yeelanayaa hay'adaha Mareykanku ay ku leeyihiin dalka isaga oo yidhi waxaan furi doonaa maxariga ka jiri doonaa hoy weyn oo muddo 2 sanadooda ka hirgashanaa dalka Itoobiya caasimadiisa oo millenniumkii loogu dabaaldegay taasi ay ku tadhiidiyeen guud ahaan mas-uuliyiin tiro badan oo kamid ah ergeyada diblomaasiyadda ee ku sugan dalka Itoobiya oo sheegay inaanay marnaba sumcad ballaaran ku kasban karin Bush socdaalkiisa shaqo oo aan aad loogu soo dhaweynin guud ahaan dalalka Tanzania, Zambia iyo Itoobiya waxaa suuragal tahay in ra-iisul wasaare Malla Zenawi uu kulan gaara la qaato muddo qaadan doona
laakiinse waxaa dadaali karin dowladda Itoobiya iyo soo dhaweynta warkii oo aad kala socoteen muqayaha qaranka Soomaaliland dadweynaha aanu jecelahay waa naga intaa warka xigeenka isku doona hadii Allah uu dilin ogolaado kan damo barkadkoor assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh